السلام عليكم أصحابتي قالقة كسو دوادا maanta waxaynu doonaynaa inaynu kaga hadalno muuqaalkan arrinta dhowaan barta bulshada qabsatay. Haddaba maxay tahay? Waa wiilka lagu magacaabo Rayaan. Waa 5 jir ku dhacay ceel kuna jira 5 maalmood. Rayaan waxa uu ka soo jeedaa tuulo ku taala Morocco. Waxa uu halkaasi kula noolaa waalidkiisa. Sida maalmahan dambe jaraa'idda iyo warbaahinada caalamkaba ay muujinayeen, waxaa la arkayay Rayaan oo ku jiro meel ceel aad u dheer oo dhan ilaa 32 kiiloomitir. Rayaan waxa uu ceelkaasi ku jiray muddo dhan 5 maalmood. Rayaan intaasi kuma ekaan ceelka muddada uu ku jiray, balse kaamiro hoos loo geliyay ayaa la arkayay marka dib loo eego in uu cunuga weli nool yahay. Rayaan ayaa godkaasi ku jiray muddo aad u dheer, balse waalidiintiisa oo uu la noolay waa hooyadii iyo aabihii ayaa arrinkaasi aad uga murgay. Sida aad kaamirada uga joodaan, waa labada waalid ee dhalay Rayaan. Waa aabihii iyo hooyadii oo aad u fajacsan, marna dul tagaya meesha godka uu ku dhacay wiilka, marna iska jahwareersan oo shacabka dhex taagan oo dhex ordaya. Rayaan waxa ay ku dhacday arrintan murugta badan oo xaqiiqatan qulubta shacabkana taabatay dhammaan dunida, indhaheedana ku soo joodisay ceelkani aadka u yar oo 32 mitir hoos u qodan. Wiilkan yar ee Rayaan ayaa dhab ahaantii aad looga murugooday markii la arkay inuu ku dhacay ceelkaasi. Waa xilli habeen ah. Waxa uu ka soo baxay guriga hooyadii, waxa uuna hooyadii iyo aabihii u soo sheegay in uu xaafadda deriska ka soo cabi doono biyo, balse Ilaahay qadartii ayaa jirtay. Siduu u soo socday, Rayaan waxa uu ku dhacay god aad u dheer oo xitaa 15 qof oo dhaadheer ah haddii la istaajiyo ay gudaha xitaa aysan gaari karin meesha uu ku jiro. Rayaan nasiib wanaag 5 beri waa uu noolaa, balse qadartii Ilaahay oo socotay awgeed weligeed lama arkin 5 maalmood qof ku jira meel ceel ah oo haddana sii nool. taasi waxay ahayd qadartii Ilaahay, balse meeshan Rayaan waxaa yimaaday khubaro intaasi ah. waxaa meeshaasi uu ku jiray isaga ceelkaasi isugu yimid khubaro, saynis yahano, culamo iyo weliba dad kala duwan oo dhammaan la dhihi karo waa dadka maanta dunidan aynu ku sugannahay siiba qarnigan saameynta ugu weyn dunida kale. dadkaasi oo dhan ayaa isugu yimid halkan, balse qadartii Ilaahay waxba waa ay ka qabani waayeen. alla qadartiisii ayaa socotay, ayagana uma suurtagalayso maadaama qadartii Ilaahay ee halkaasi ka socotay. Rayaan waxaa la arkayay isaga oo godka dhex jiifo, kaamiradan ay qabanaysay, dhaawacyana ay ka muuqdaan. oo wiilkaasi ayaa mar kaamirada qof hoos loogu dhiibay sheegay inuu ooman yahay oo weli uu hayo oonkii uu xaafadii hooyadiis kaga soo tagay. Rayaan waxaa loo geeyay biyo oo waxaa loogu dhiibay aalado ay isticmaalayeen dadkii meeshaasi ku sugnaa. ugu dambeynna Rayaan waxaa u suurta gashay in biyihii uu cabo, balse Rayaan qadar Ilaahay 5 beri markii uu meeshaasi ku jiray, ugu dambeyn waxaa u suurta gashay in Ilaahay qadartiisa uu meeshaasi ka soo baxo. maadaama xeelado badan loo maray oo xitaa fikrado dadka qaar ay keeneen ah in ceelka markuu inta ku yaalo ceel kale laga aqodo deen gesges loogu soo laaxdo, dadna ay yiraahdeen ceelka sidiisa ha loo galo. xitaa mar lagu dayay in qof la geliyo oo qofkii markii uu muddo ku soo socday ee u suurtageli waysay inuu sii socdo maadaama naqaska uu ku dhagay. sidaas darteedna ee sheekada oo amsixi waysay. Rayaan ugu dambeyn waa uu soo baxay, balse farxad hal mar meeshaasi waxaa ka dhacay farxad iyo jawi aad u duwan. balse daqiiqado kadib meeshaasi waxaa lagu arkay wareer iyo jahwareer meesha ka socday. Rayaan hooyadiis oo la wareystay markaasi cunuga la soo saaray ayaa aad ugu faraxday, dhab ahaantii sheegtayna inay aad ugu faraxsan tahay inay muddo 5 maalmood ah kadib la kulantay cunugeeda. balse warbaahinta caalamka oo si toos ah u tabinaysay oo indhaha dunidana ku soo joodisay dunida caalamka kala duwan ayaa haddana cunugii markii la soo saaray oo isbitaalka la geeyay helikobtarna ay diyaar ahayd in dibadda dalka loogu qaado, ayaa isla markiiba waxaa meeshaasi ka dhacay in cunugii uu meeshii ku geeriyooday. taasina ay ahayd qadar Ilaahay iyo mucjiso la tusayay gaalada oo muddo 5 maalmood soo bixin waayay. Ilaahay qadartiisana inuu ku soo bixiyay meesha ku celiyay cunugii oo uu geeriyooday.
ilaahayna oga dhigay farxad inay waalidkiisa cunuga mar indhaha ku nuursadaan oo ay arkaan deedna ilaahay oo ka qaato. waxaynu leenahay ilaahay xijaab ha oga dhigo maalinta aakharo wiilkaas yar oo iga ka geeriyooday indhaha caalamkana sida aadkay u ahaayeen. dhab ahaantiina waxa uu ahaa wiilka muddadii isbuucii ugu dambeysay siiba bishan siday u dhalatay social media haystay oo warbaahinta ay si live u tubinaysay. waxaynu ilaahay u weydiinaynaa inuu ilaahay jannatul firdowsa geliyo waalidkiisana ilaahay uu xijaab oga dhigo. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan hadday inagu cusub tahay subscribe channelkeena oo inagu soo biir gambaleelkana furo muuqaalka like saar oo inoo share garee asxaabtaada kale la wadaag si ay iyagana noogu soo biiraan. aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. waxaynu idin leenahay maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, subax wanaagsan iyo qof walba waxa ay u tahay oo wanaagsan.